Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo goordhaweyd khudbad ka jeedinayay munaasabadda ay musharaxiinta u tartamaysa 11 kursi ay gobolada waqooyi Somaliland ku leeyihiin aqalka sare ee Soomaaliya ay hadalkooda ka horjeedinayeen ergada kala dooran doonto ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan marxaladda siyaasadeed ee dalku maro iyo khilaafaadka taagan. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa ku dheeraaday ka hadlida arrimaha doorashooyinka isagoo faray maamul goboleedyada in ay soo dhameystiraan xubnaha ka dhiman aqalka sare sidoo kalena si hoos ah looga gudagalo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan ammaanka iyo xasiloonida dalka. shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadawga shabaabna uusan ka faa'iideysanin waxa tuhumada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalationka sameeyo oo xagga siyaasadda wax weyn oo siyaasadda la isku hayo ma jirto. dhanka kale Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa si adag uga hadlay kiiska marxuumad Ikraan Tahliil waxaana uu sheegay inuu u taagan yahay cadaaladda isagoo cadeeyay sida uga dhaqsiyaha badan ay helayso cadaaladda. shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markasta u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheennii Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa kuwa dhibku u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo gali doonaan waana la xisaabtamaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo laakiin qalbigeena khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa maxkamadda militariga ayaa loo xil saaray go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa horena waa u faray haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan cadaaladdaas ayaana wada deeqdo. ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax weyn oo sayid ah oo hadda la isku haysto isagoo shacabka ugu baaqay in ay isdejiyaan oo aysan waxba ku mashquulin khilaafaadka jira isagoo tilmaamay in la xalin doono wax walba. xaaladda dalka alxamdulillah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad waa iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn ayaa loo qaadanin wax kasta waxaa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha